mas'alada labaadna waxa ay tahay sifaadkiina iyagu marka yacni wejigii iyo yaddii iyo waxyaabahaas oo dhanna waa diidayaan, waxayna u leexanayaan dariiqatu ta'wiil oo yaddi in qudro la dhaho, nicmo in lagu sheego wamaa ilaa dalika. taasna waa tay diidayeen raggii hore. ayib gadaal dambe markaan u imaano mas'alatu alqur'aan ama kalaam ullahi tacaala, markaan iyadana tusaale kale ka dhigto, mas'alatu lkalaam ama alqur'aanu kalaamullahi gayru makhluuq caqiidadii salafka waay. ashaaciradu ayagu marka maxay ka qabaan mas'aladaas? inta aanan yacni hadalkaygii hore marka kanaan rabay inuu muqadimo u noqdo, ashaacirada aada sheegaysaan kuwee waayo marka? nacam saasaan leenahay. nacam hadday ashaacirada aad sheegaysaan ay tahay madhabkan ashaacirada hadda dunida ka jiro oo kii Juwayni iyo Raazi Aamidi iyo Iiji iyo raggaas ay ka yihiin, yacni ay aasaas u yihiin ama ay saldhig u yihiin hadday tahay, oo baajuurina xawaashidiisii oo raacsaday, hadday taasi tahay, hadda raggaasi marka baajuuri iyo ragga lamidkaa hadda annaga kutubta dalkeenna caqaa'idu sabcaha iyo la akrinaayo mathalan, baajuuri wuxuu ku leeyahay gacan weyn uu ku leeyahay, isaga xawaashidiisa wax laga sharxaa, isagaa la tilmaamaa. xawaashidaas marka kitaabka tuxfatulmuriidka baajuuri ma ku taallaa qur-aanku waa makhluuq mase kuma taal? waqabla haadana kalaamka ilaahay ashaaciradu madhabka ashcariga ee saa-idka hadda kalaam alle markau tilmaamayo waxa uu sugaayo waxay tahay alkalaamu الnafsiyu, waa kalaamka nafsiga ah. amaa yacni qur'aan musxafka waxa ku qoran waxa la xifdisan yahay oo xufaaddu ay xifdisan yihiin, maxaariibta waxa ay aimadu uga tujinayaan, waxyaaba yacni kaasi qur-aanka malfuudka ee la akrinaayo ee maqruu'a ee la akrinaayo, shaygaa la akrinaayo, anu qiraa'ada kama hadlayo, qofka qiraa'adiisa ma ka hadlayo, shayga aan akrinayno laabteenna ku jiro, looxa lagu qoraayo, maktuubka, maqruu'a, almuuca fi suduur, shaygaas muxuu yahay isaga marka? yani maxay ka qabaan? ilaa waxaa laga hadlaya hadda qur-aan anagu maa beyna dafatay lmusxaf waxa ku yaalaan u naqaanaa sooma, ummadda muslimka o dhanna ay u taqaanaa. kaas in makhluuq la dhaho muxuu ka qabaa sheekh baajuuri? muxuu ka qabaa? tuxfatulmuriidka aan fiirino. ayb safxada 130 dabcadan beydka oo jawharatu tawxiidka oo sharxa dabcan marka uu sharxayo xayaatuhu kada lkalaamu samcu, marka uu beydkaas uu sharxayo ayaa waxa uu leeyahay sidaan: وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها لكن لها أقسام اعتبارية إلى أو صوذي. وحير واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم، كلامك إلهي وحاله إطلاقا كلامك النفسي قديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته، وعلى الكلام اللفظي كان لقوا واقع قرآن كان، وأنه لقوا إطلاق كلام الله بمعنى أنه خلقه، بمعنى أنه خلقه. نعم ديس ku oolin kitaabku ma ku taalo waa la dhihi karaa laakiin hadday ku taalo shaaciradu waxay qabtaa qur-aanku makhluuq ma qabaan, qofkii waa qabaan yidhaahdana waa ku tacadiyeydu xoogaa waxay noqonaya markaas. haddii hadda tanna aada leedihiin waa zalla oo anagu yacni tanna looma tirinayana waa si fiican. ayb meeshaas marka sidaasuu yidhi 100 iyo ilaa marka walaysa liaxadin fi asli tarkiibihi kasbun wacalaa hada almacnaa yuxmalu qowlu sayida caaisha maa bayna dafatay lmusxaf kalaamullaahi, taasaa lagu xambaarayo. waidlaaquhu calayhima qiila biاlishtiraak waqiila xaqiiqiyun fi nafsiyi majaazun fi lafdiyi. kan lafdiga waaba majaaz uu leeyay kalaamullaahi aw xaqiiqi amaba ahaba. ayb
yaa iskale marka musxafka waa yani qur-aankan ku yaalo musxafka noogu yaalo on akrinayno o salaada ku dukanayno isaga yaa iskale aan fiirino meeshaas marka ayb 160 صفxada wanazhi الqur'aana ay kalaamه can اlxuduuثi waxdar intiqaamه meeshaas marka uu sheegayo waxa uu yidhi واctaqid ayuha الmukalafu tanaزha الqur'ani bmacnى kalaamihi tacaalى can اlxuduuث khilaafا lilmuctazilati waa soo waday fakalaam اllahi tacaalى cindahum makhluuq waayo yihi ilaa marka uu yidhi وأma الqur'an bmacna الlafظ اladي naqrأhu fahuwa makhluuq وأma الqur'an bmacna الlafظ اladي naqrأhu fahuwa makhluuq hadda ma la dhihi karo wuxuu ka wadaa qiraa'ada mashi qira'a ma dhihin وأma الqur'aanu buu yihi nacam qur'aan iyo qira'a farqiga udhexeey qiraa'ada waa makhluuq sida imaamu الbukhaarina ou aad qiraa'ada qofku waa makhluuq walidalika qira'ata abi camra laleeyahay qur'aanu abi camrin ma la dhahayo mogta farqi baa udhexeeya isaga hadda marka wuxuu leeyahay وأma الqur'aanu wamadhabu ahli الsunati wuxuu yihi ana الqur'aana bmacna الkalaami الnafsiyi laysa bimakhluuqin kalaamka nafsigana waa waxaan soo baxaynin oo ilaahay nafsadiisa un ku dhex jiro وأma الqur'aanu bmacna الlafظ اladي naqrأhu fahuwa makhluuq lakin ymtanicu an yuqaala lakin wuxuu yihi waa la reebaa in la dhaho alqur'aanu makhluuq wayuraadu bihi allafظ اladي naqra'hu ila fi maqaami الtacliim dadka marka wax la baraayo iyo waa la dhahaa laakiin cinda alcaama ma laga dhahayo waxaan marka tuxfatulmuriidkana sidan waa ku taala 162 imaaw fakulu nasin lilxuduuثi dalla ixmil cala lafdi aladii qad dalla beytkaas markuu sharxaayo cala lafdi marku qabtay wuxuu yihi ay cala alqur'aani bimacna lafdi اlmunazali calى nabiyina salى اllahu alayhi wasalam almutacabadi bitilaawatihi almutaxadaa biaqsari suurati minhu laysugu taxadiyey wuxuu yihi waraajixu ana almunazala waxaa lasoo dejiyey marka waa allafdu walmacnaa buu yihi lafdiga ee macnaha waa munazalku waqiila waxaa la yihi buu yihi almunazalu bis waqiila waxaa la yihi almunazalu almacnaa bis waay wacabara canhu jibriil bialfaadin min cindihi jibriila marka alfaad min cindihi ka cabiray saasna waa la yidhi waqiila almunazalu lmacnaa wacabara canhu nabiyu nabigaa cabirayna waa la yihi macnaha yaa lasoo dejiyey laakiin tacbiirka nabiga iskalena waa la yihi bialfaadin min cindihi buu ka tacbiiriyey laakina taxqiiq alawal uu yihi lafdiga macnuhuba in lasoo dejiye saasaa taxqiiqu yahay liana allaha maxaa yeeley wuxuu yihi alla khalaqahu awalan fi lawxi lmaxfuudiyu ku abuuray huma anzalahu fi saxaa'ifa ilaa samaaءi dunya fi maxalin yuqaalu lahu beyt اlciza fi leylati اlqadr kama qaala tacaala ina anzalnahu fi leylati اlqadr huma anzalahu cala الnabiy sal l slam mufaraqا bixasabi اlwaqaa'ic halkaasna saasuu ku yidhi marka waxa carab lagu xujeeyey ee la yihi la imaada taxadigii carab lagu sameeyey ee la yihi qur-aankan oo kale keena qur-aankan musxafka ku yaalla waa ee maa fii nafsi illaahi waxayba dhehi lahayn annaga ilaahay nafsadiisa kalaam ku jiro ma naqaane taas hanugu xujeynin bayba dhehi lahaayeen soo maha laakiin qur-aankan la aqrinayo yaallo eed maqlaysaan oo kale la imaada kii marka mucjizka ah qur-aankii mucjizka ahaa ee musxafka noogu yaalla muxuu yahay haddii marka ashaacira ay qabto qur-aanka musxafka ku yaalo ee la xifdisan yahay ee beyna dafatay lmusxaf xaqiiqatan kalaamullaahi waa hadday sidaas ay dhihi karaan ama ay qabaan makhluuqna ma ahan ay leeyihiin waa si fiican laakiin hadday leeyihiin kalaam aan sugaynaa qur-aanku muxuu yahay waa kalaamullaahi kalaam muxuu yahay laakiin nafsi miya mase waa kan lafdiga kee ka wadaan in la dhaho way leanna ayagaa uqeybiyey saas ayagaa uqeybiyey walidaalika baajuuri marka uu burdaha sharxaayo low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama beytkaas markau sharxaayo macnaha beytku wuxuu yahay hadday
yacni mucjizaadkii la siiyey haddii qadarkiisu oo u dhigmi lahaa axyasmuhu xiina yudcaa daaris ariman. wuxuu leeyahay ishkaalaa la keeni karaa qur-aanka mucjizada nebiga la siiyey qur-aanka u weyn mucjizooyinka. haddii la yidhaha qur-aanka iyo yaa fadli badan nebiga sow nebiga qur-aankii sow sifo ilaahay sow ma ahan kalaam alla sow maaha haddii la dhaho qur-aanku laba waayuu leeyahay nafsi iyo malfuudka. kan malfuudka waa xaadithna nebiga u fadli badan yani waa makhluuq waay makhluuqna nebiga u fadli badan. amaa qur-aanka kalaamka nafsiga alqur'aan nafsi oo kaas isaga wuxuu leeyahy waa qadiim walqadiimu afdalu min alxaadith. baabkaas halkaas oo marka uu ayuu gelaa. ayb iyada lafteeda halkaan uu ku qoray tuxfat lmuriidka 161 wuxuu yihi wahal ilqur'aanu bimacna lafdi almaqru'i almaqru' ou dhahayaa feer hadda ma ahan qiraa'adii ma ahan. wahal ilqur'aanu bimacna lafdi almaqru'i afdalu qur-aanka la akrinaayo lafdigan maqru' ee la akrinayo miyaa fadli badan o sayiduna moxamed sala allahu alayhi wasalam yaa fadli badan. haddii la dhaho tamasaka bacduhum bima yurwaa kulu xarfin khayru min muxamedin wa aali muxamedin a kuwa ay qabsadeen yiri xaraf kasto moxamed iyo aalkiisaba waa ka khayr badan yahay laakinahu gayru muxaqaqi thubuuti yiri xadiidkaas lama hubo yiri sugnaashadiisu mid la xaqiijiye ma aha. walxaqu anahu sala allahu alayhi wasalam sida xaqase nabiga sal l slam afdal xaqa waxaa nabigaa fadli badan yiri liannahu afdalu min kuli makhluuqin u yiri makhluuq kasta waa ka fadli badan yahay. bilaahi calaykum makhluuq ma dhahaayo mase ma dhahaayo makhluuq soo ma dhahaayo nacam. ayb kamaa yu'khadu min kalaami اljalaal almaxali cala alburda sharax ou saaray wayu-ayiduhu ana ficla alqaari'i wالnabiya sal ly slam afdalu min alqaari'i wa jamiici afcaalihi walaslamu alwaqfu can mili hada buu yiri fainahu laa yaduru khuluw dihni canhu. intaha mulakhasan warka oo waxa waaye maxali jalaaldiin almaxali oo ka keenay. marka de qiraa'adu dabcan waa makhluuqa laakiin maqru'a waay waxa uu asagoo hadda halkan ku sheegayna. marka kalaam idinku markaad leedihiin alqur'aanu kalaamu llahi gayru makhluuqin su-aasha laidin weydiinaya waxay tahay maka qur-aan nafsi aha ka hadlaysaan mase qur-aankan aan akhrisanayno musxafka noogu yaalaad ka waramaysaan. marka duuduub ashaaciradu ma qabto qur-aanku waa makhluuq warkaas duuduub waay nacam. haddii aad marka waxaa laysku hayo waa qur-aankan musxafka ku yaalle mana ka hadlayno warqadda iyo qadda iyo ficilka qofka wax qoraayo qiraa'ada oo qofka akrinta qofka kuwaas ma ka hadlayno waa afcaalu lcabdi waay kuwaas nacam. waxaan ka hadlayna waxa uu akrinaayo waxa la qoraayo maka baxa kala yani kalaamkaas malfuudka ah hal huwa makhluuqun am gayru makhluuq midkaas waa midka dhabta in laga hadla mudan waxa kale duuduub waayo waxyaabaha meela yani ku yaallo baajuuriguna de waa tuxfatulmuriidka waa laga fiirin karaa waxyaabahan oo dhan. khulaasatu lqowl marka waa ku dheeraaday intaan rabay waa kasii dheereeyeyba. muhimaddu waxa ay tahay manhajul istidlaalka iyo masaa-isha sifaatka weliba sifaatu daatiya alkhabariya raggii hore shaaciradii hore qabla aljuwayni waa sugi jireen waxayna daliisho jireen aladila naqliya waxaana lagu magacaabi jiray asifaatiya la dhihi jiray. kuwaan dambana waxaas oo dhan wixii ay jahmiyada ku sheegi jireen kuwii hore kuwaan caqiido u ah waana kaan akriyey waay nacam. wixii ka duwan marka arrintaana marka bacd aljuwayni inay bilaabatay alimaamu dahabi sir aclaami nubalaaga tarjamada abu dhari alharawi juska 17 559 safxada ah wuu tilmaama oo intuu kasoo hadlay baqilani hadal uu leeyahay oo hadaladii hadaaya aan akrinayo kale intuu keenay ayaa waxa uu yiri weliba abulwaliid albaaji baa fi kitaabi ikhtisaari firaq alfuqahaa ayuu wuxuu sheegay fi dikri alqaadi bni albaqilani markuu sheegay laqad akhbaranii shaykhu abu dhar wa kaana yamiilu ilaa madhabihi fasa'altuhu min ayna laka hada qaala inii kuntu
qisadii uu abudar ugu ta'asuray oo ka hadlay adiga kadib marka wixii uu qabay iyo ayuu sheegay. kitaab ibaana la yihahdo isaga laftiisa lahay kitaab alibaana la yiraahdo lahaa baqilani maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya iyo yaddi iyo wejigii ayuu ku sugay adiladii. markaabuu wuxuu yidhi alimaamu dahabi qultu fahada almanhaju huwa طariiqaة الsalaf wahuwa aladii awdaxahu abulxasan waasxaabuhu. yani sifaadka daatiga iyo sugidooda iyo dabcan mu-aakadaad kale baabab caqiidada ku saabsan waa jiraan, laakiin tan hadda oy qarireen oo wejiga iyo yadda iyo wuxuu leeyahay madhabu salaf waayo. tumaru kamaa jaaءat bigayri takyiifin walaa taxdiidin walaa tajniisin ama walaa taswiir. saasuu yihi macnaha baqilani warkiisa iga dhexgalay. qultu dahabiya saan dhahay fahada almanhaju huwa طariiqaة الsalaf wahuwa aladii awdaxahu abulxasan waasxaabuhu kay cadeeyeen wahuwa atasliimu linusuusi اlkitaabi in la nabadgeliyey wasuna iyo sunada. wabihi qaala bnu lbaqilani wabnu furak walkibaaruna saasay dhaheen ilaa zamani abilmacaali ilaa waqtiga abilmacaali اljuwayni huma zamani sheekh abi xaamid ardayga uu ahaa abilmacaali اljuwayni fawaqaca اkhtilaafu waalwaanu nas'l اllaha alcafwa. fawaqaca markaa waxaa dhacay ikhtilaafu waalwaanu nas'l اllaha alcafwa sidaasuu yiri. marka ashcariyadu hadda marka madhab wixii ay geyrkood waxa ay ku bidcaysiinayaana waxaa laga helaa kutuba awaa-ilihim. marka madhabkani in isaga horta si sal loogu dhigo u baahan yahay. hada aakhiruhu wallahu aclam. wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih.